السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب إذن قيمها بدنا كوحنا برتني يوتيوب كعبد الله حسين وحن ما تيده إن أرنتا عطو شر يحاسكيسا أو سوين برها برشة لوجا أفلق هذه كدبنا آد وجا حناق أرنتاس حاسك عطو شر يسوق لو اللي بيسجع أي فيديوز كصاد دبي يجو أون وين إن تدوات كلا صورة في أرسكو كده عين مقالة عاصمة مقدشة عطو شر أون وأجنه هو اليوتيوبر عنا كنا شقية حفيز كتوت في الميديا أوليه حسن طوب نيكالو يقانو كاس أيه جورسدي كبر Soomaaliyeed taasi oo hay isku calmadeen nolosha waqti badan kadib oo iyo farxad badan kadib waxa dhacay arooskooda kaasi oo ay aad uga soo qayb galeen jilayaasha iyo waliba dad baraha bulshada magac ku leh arintaa kadib waxa uu sheegtay gabadha Cabdi Shar in soo gaadhay aflagaado badan taasi oo uga imanaysa dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala iyo khaasatan kuwa si leef to leef ugu yimid inta dhamaantoodba arintan waxa ay noqotay mid ka oysisay lamaanahan iscalmaday in nolosha ku midoobay waxaana si weyn baraha bulshada ugu faaleynayay saacadii la soo dhaafay dadka baraha bulshada isticmaala gaar ahaan aaladda TikTok, YouTube iyo Facebook arintani waxay noqotay kuwa hanan markii koobaad ahayn laakiin marar badan ku soo noqotay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda balse Soomaalidu inkastoo ay tahay hal qabiil iyo hal qoys oo ay tahay meel kastoo degan ilaa loo yacday ilaa la iska baro inta u dhaxaysa ay tahay Soomaali kaliya oo qabiil kale ku dhex firqanayn amba wala deganeen haddana waxaad aragtaa amba waxaan inta badan aragnaa inay Soomaalidu isku takoorso qabiil taasina oo qabiilka kale oo ku sheego misna ay jiraan qabiilo si gaar ah loo yaabsooco kaas Cabdi Shar san wada ognahay wuxuu ka soo jeedaa beesha jarir weyne ee degta koonfurta Soomaaliya inteeda badan inkastoo ay deegaamada Soomaaliyeed degto inteeda badan dhamaantoodba waxaan ogeyn in magaalada Muqdisho lagu gubay Maxamed Dooli nin la oran jiray oo haw inanka wadeerka u yahay gursaday in gabadh reer Banaadir ah taas bedelkeedana ahayd dili reerkii Maxamed Dooli oo ka tirsanaa golaha shacabka taasina cid isku weydiisay jirin dawladda ha ahaato shacabka ha ahaato in kuwii la dilayna amba dilayna iyagana xaga gadaasha inta iska mariyeen madaxdii waqtigaas xukuumayay Soomaaliya hay yiraahdeen cid taaban karta ma lahan cid la hadli karta ma lahan ee waa dad ka dhashay xalada qoys la fiican leh amba qoys la ixtiraamo ayay ka dhasheen taas bedelkeeda maantana Cabdi Shar ay ku socotaa midii oo kale taasi oo baraha bulshada oo la weyn laga bilaabay oo ah kuma qalantid wiilkan iyo iskuma qalmaan labada qof lamaanuhu marka ay iscalamadeen diinta Islaamka ma jirto meel ay kaga qoran tahay qofkan ma gursan karo oo adduun Soomaaliya aba diinta adduun qofku ahayn qof Kristaan amba diinta Islaamka haysan waa laba qof oo muslimiin walaalaha Soomaaliya af Soomaali ku hadlaya in sidoo kale iscalamaday isjecel mana jirto wax diidaya inay iskuursadaan amba xaqiiqo kale oo diidaysa balse Soomaalidu waxay aaminsan tahay inay qabiilada ay kala fiican yihiin amba qabiilada qaarkood ayna qaar kale u qalmin taas ayaana oo la bilowday balse waxaan leenahay dadkan sida xun labada qof ee lamaanaha ee iskuursaday baraha bulshada uga aflagaadanaya amba si leef to leef uga aflagaadanaya waxaan leenahay war xabaashiina iyo akhridan ka cabsada sidoo kale waxaan leenahay ninkan way ugu dhici kartaa midan oo kale oo waad jeclaan kartaan qof ka soo jeeda qabiil kale amba qof ka soo jeeda qabiil kale taas bedelkeeda ayaan iyaga lamaanahan waxaan ugu ducaynaynaa ducada rasuulka ilaahay ka dhigo ku barakeysan oo hay awlaad khayr qabo dhala iyo reerkii lagu nastay ee lagu nagaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal